بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال أخلاق ذا وناكسن وصفة وقفك مسلم كأوليه هاي لو قلنا بهاي هاي مر والبين وكده داله إن أخلاق ذا وناكسني وحيكو جينيسا وناك الدون إيا آخرة أخلاق ذا حنا وحيكو جينيسا الدون إيا آخرة بخسارة. وعن أركينا نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاه مركي لو ويدي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حكوت المامتي إن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وها قرآن كريم كان إلهي بنوت الماء وحيري وإنك لعلى خلق عظيم ويقول سبحانه وتعالى تلمامي وحن أوجد لي هاي قبلها أنك شرفت بدن وناقة بدن إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ذي وناقة أوسيي أيا قبر كم إذا قبلهاس ayaan rabay akhlaaqdeedu wanaagsani inay sabab ugu noqotay in gabar isu dhisha ay ku islaamto. Allahu akbar. waynu dareemi karnaa fadliga iyo wanaaga way leedahay qof aad adigu gacantaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo islaamiso. qof walbana waxa uu yahay safiir u yahay hadduu joogo meel walba diinta islaamka ayuu u yahay. waxa laga yaabaa gabadhaas aan ka sheekeynayo qaar kale oo ka mid ah inay maanta ma aragtay ay safaarad u noqdaan akhlaaqda xun oo laga dhaxlay dhaqanka TikTok-ga. aan u nimaano qisadan walaalayaal laajil ibra gabadhani jaamacad bay gabadhaas la dhiganayeen wax barasha ka wada dhaxaysay waqtigeeda markii la gaaro salaadeeda tukanaysay wanaag ayay kala kulmaysay run sheegid bay kala kulmaysay waxay ahayd gabar Ilaahay subhanahu wa ta'ala asturay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa gabdhaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah noo asturo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaynu ka baryaynaa biidni Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waxaan noqotay marka inay gabadhaasi ay isku daydo mar walba oo ay fiiriso oo mar walba u sheegto waxaani waa diinta islaamka ayaa i baraysa. salaada aan tukanayo iyo waqti aan qaadanayo waxba la akhrisanayaa isku jaamacad bay ahaayeen waxay leedahay iikaadi waxa la soo gaaray waqtigii salaada aan tukanayay way leedahay. waxaa dhici karta ma taqaanaa inay ma aragtay marmarka qaarkood waxay arkaysay iyadoo soomaysa markaasay leedahay maxaa soonkanu yahay waxay tiri soonkani waa sunna rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa khamiista isniinta soomi jiray. waxay tiri marka waxay maqli jirtay meelaha qurbaha waxa laga yaqaanaa shan toddoba tufo bay isu dhishka dhahaan oo ah qofku inuu maaragtay wiigi waa wax diintanadu waxa waaye waxyaalaha mucjizaadka nabi sallallahu alayhi wasallam tahay in la yiraahdo 5 to 4 oo bimaana waxa waaye qofku shantii bari inuu maaragtay laba bari maaragtay muxuu ahaa uu cunto la'aan uu noqdo ayay yiraahdaan qolooyinkan cadaanka ah. markaas waxay tiri oo tanna maxay tahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam 400 sano miyuu ogaa ha isniinna wuu soomi jiray khamiisna wuu soomi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam. markaas waxay maqatay dadka maaragtay ama iscaateynaya waxay ogaadeen inuu caafimaadku ku sugan yahay inuu qofka laba maalmood uu soomo oo aan ahayn soonka annaga aynu soomeynin. muddo dheer waxay gabadhaasi ku guuleysatay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab ooga dhigay inay gabadhani diinta islaamka soo gasho kadibna tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla wa ala ay ku dhawaaqdo la ilaha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ayna la soo xiirsiiso. waxaan xasuusanaynaa wadamadan aad maanta aad arkaysaan aad leedihiin islaamka ugu badan Indonesia Malaysia Aasiyadaas islaamka ugu badan yahay maxay ku gaareen waxay ku gaareen diinta islaamka waxay ku gaadhay akhlaaqdii ay kala kulanmeen dadkii muslimiinta ahaa ee xaggaas aaday. marka waxaan oran lahaa qof walba oo ay dhageysanaya wiil iyo gabar ka tahay akhlaaqdaada ha noqoto akhlaaq islaameed ha noqoto iskuna day inaad ma aragtay meeshan risaale ayaa tahay oo diinta u taagan inaad ma aragtay dacwada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad fiirsid kana fogow akhlaaqda xun yaysan noqonin sawirkaagu mid soo galo oo dhallinyaradani maanta lagu ibtileeyay dhaqankan xun ee qashinka social media ee TikTok la yiraahdo ku mashquuliyay. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر.
فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. مسلمون مسلمون مسلمون.